kulmiyaha dambe markuu baahan yahay dadka wuu baryaa waana isu bihiyaa laakiin marka uu barkhad iyo baraare helo dadka wuu biiyaa intaasun baan barashada kulmiyaha dambe ku soo koobaya حين استجارت بقربه وسمنها حتى إذا تكاملت فرته بأنياب لها وأطافري أن مدحوين موسى بيحي كلا قوستي لبا جير بان ارغو تغي إن aan warqad uga sameeyo uga saxeexo waan uga caalwaay gabadha halkan laga bixiyay aynu ku bixinay waxay walaalayihiin ganacsade barkhad jibriil xasan faarax oo aan dhalinyaro oo dadaal badan sameeyay ninka dhalinyarada ahi maanta dalkiisa hooye uu ka maqan yahay wuxuu ninkaasi yagleelay shirkad ganacsi wuxuu u iibgeeyay beeyadeeni ayuu suuq u soo raadiyay waxaan u ahay xogagaal weyn arrimaha barkhad suuqa beeyadu intii aanu barkhad soo gelin wuxuu ahaa mid aad u hooseeyo oo jaban beeyadeennana waxaa la keen jiray meelahan dhow ee carabaha barkhad wuxuu ku guulaystay inuu beeyadeenna suuq soo helo ganacsigu suuq buu baahayay wuxuu soo helay suuq weyn taasi waxay kaliftay saddex calaamo ayaa laga faa'iiday kow qiimihii beeyada oo kacay oo $9 gaaray kiilogii oo aan weligii taariikhdeena soo marin waa talabaad beeyada Soomaalida oo dhan beeyada kuma taalo dhinaca Soomaaliland oo kaliya dhulka Puntlandna way ka baxdaa beeyo badan baa ka baxda dhammaanteed waxa loo soo iibgeeyay muxuu ahaa shirkadda asli maydi baa laga iibin jiray iyadoo way iibgeyn jirtay waxay samaysay dhaqaale fada badan ayay gelisay ayay dawladdu ka heli jirto cashuura lacagaadu badan bay dawladdu sanad walba ka soo geli jiray cashuuraha oo aanay hore u heli jirin waxa kala oo shacbigii ku noqday lacag badan oo xoolaha nool iyo xoogga dibadda ee xawaaladaha ka soo baxa madaxii saddexaad wuxuu noqday beeyada ayuu noqday 100 milyan baa sanadkii soo geli jiray Somaliland oo beeyada ka soo farcimi jiray wuxuu noqday suuq aad u diiran ninka dhalinyarada ah wuxuu ku guuleystay ganacsiga inta leh dawladuhu way ilaaliyaan dawladaha suuban iyo xukuumadaha wanaagsani waxay ilaaliyaan ganacsatadooda iyo shirkadaha ganacsigooda waayo shaqay abuuraan cashuura laga helaa siyaasadda dawladuhu waa sidaa nasiib darro ninka dhalinyarada waxa ku dhacday dhibaato wuxuu ka mid ahaa barkhad dadkii la shaqeeyay dawladda ee horumarka ka qayb qaadanayay ee iskuulada dhisayay ee cusbitaalada dhisayay inta soo hudheel buu ka dhisay ceergaabiyo burciyo berbera hantidiisii waa wiil yar oo qurba ku koray dibad ma dhigan ee dalkiisu geliyay aad baan u bogaadinayaa uguna hambalyeynaya siyaasadda uu qaatay wuxuu dadkii dhisay xisbiga kulmiye ee nala shaqeeyay madaxweyne muuse bixino wuxuu dadkii dhisay ee cuudka badan siiyay goobjoog baan ka ahaa waxaan ninkii isu geeyay waxaan ninkii u shukaamin jiray waxa ku dhacay nasiib darro weyn wala la dagaalamay barkhad dagaal qaawan baa lagu qaaday kamuu helin garab iyo gaashaan dawladii uu dhisay ee uu waajibka ugu lahaa isagoo ganacsada inay u gargaaraan ee uu waajibka ugu lahaa abaalka in loo abaal celiyo kamuu helin maanta waa dabadmeer waa masaafur wadankiisa ka maqan waxa loo sharay waarano lagu xidho hantidiisa baa dibadda lagu xanibay dunuubeena baa loo sameeyay waxaan madaxweyne muuse bixi kala quustay laba jeer baan ergow ugu tagay in aan warqad uga sameeyo uga saxeexo waan uga caalwaay waxaan xasuusiyay barkhad shalay ku ahaa mararka qaarkood dadku mashquulkii wax ku ilaawaan waxaan uga sheekeeyay kaalinta uu ninkaasi ku jiray waan ka quustay nasiib darro weyn weeye arinta iyada ah waxaan leeyahay barkhad fariintaan halka uga dirayaa adeer waxba niyad jabin noloshu waa maalmo yar waa hadqoodaarka labadiisa gelin ee isbedelaya shalayto waxaad ahayd niman xoolo haysan
wiilyara guulaad gaadhay noloshu caqabaday leedahay ninka ragina wuu adkaystaa dalkaaga hooyana waad ku soo noqon doontaa waxaan leeyahay ninkii loo jiray Umar Xiiwaal mujaahid Umar Xiiwaal oo nin qiimo badan ahaa macallinna ahaa markii damana SNM taraqi aasaasay ahaa ayaa xilli dhowr iyo 60 macallin ahaa ayaa nin dhoofay oo markab la socday oo in adeerkii baa war wadankii waan ku soo noqonayaa iiga waran gabadheer buu tiriyay erayo budhigu ahaa uun baan ku soo ururinayaa oo aan barkhadna leeyahay qodka guban ka soo baxay intaan yara qiyaasayo qurbahaaga joog ciiradaad kaga qarsoonaani war waxba ku soo noqon buu yiri halkan xorriyadii waynu qaadanay sidaynu moodaynay noqon weyday markabkaaga iska saarow waad iman doontaa buu yiri markay isbedel yimaado barkhad intaas uma leeyahay waxba raggii barkhad la dagaalamay ee ka abaalka dhacay waxba halkan kaga tiiqtiiqsan maayo halkan waxba kaga tiiqtiiqsan maayo ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير عامري نبابري ريرمي عربة أيا نمن أقارستي ورابع إريدين أي دونيين إني أقارستان ننكيبا نرمي يابو صوغالي ورابيه خيمة ديسي إساقو دالن ورابيه باتندي صوغالي وكريباي ولا دقالمي وحكوري وريارهن نكن ورابهن وإي مغن iyaguna waxay leeyihiin waruwan ugaadha yadaanu eriyeen noo soo saar inaga isku dhimanayna buu yiri waraabi buu ka reebay way ka tageen biyuu keenay habeenkiina xoolii buu soo lisay caani buu lisay caani buu ka dhargiyay halkii buu iska jiibsaday isna qiimadu dhinaca kale ka seexday burkaba bahal kama filan ila waa habar dugaadoo wacad ma lehe habeen barkii buu cunay ninkii sidaa u galay ayuu cunay oo feentay subaxiiba dee la arkay ninkii oo meedo meesha yaala la fiisay wa nin adeerkii ayuu baayimo uu baadi door waraabiyo halkii dheerag la jiifa ayuu helay isagina wuu dilay gabaygaan tirinayo ninka carbeed baa tiriyay ama la'aantu ka sheekaynaya ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير عامري قفك أبالك أسمي عيدان أمدنين وأهلوا هيني وحول ما وحي لكل ما نكي مجنجلية ورابه عامر عربت وحي رجلتي ورابها أدام لها حين استجارت بقربه وسمنها حتى إذا تكاملت فرته بأنياب لها وأطافري فقل لذي المعروف هذا جزاء من يفعل المعروف في غير شاكري وعيري ودرقيي وحول بوسي عديه سيبوكو غوغوستي مركو ناحيي وبراري waxay taasi fariinu tahay buu yiri kuwa samaha sameeya abaalmarinta ay helaan kuwa abaalka loo galo ee abaalawayaashay ayay fariinu tahay kulmiyaha dambe markuu baahan yahay dadka wuu baryaa waana isu bihiyaa laakiin marka uu barkhad iyo baraare helo dadka wuu biiyaa intaas uun baan barashada kulmiyaha dambe ku soo koobaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.